بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفدي نصوب بوضع مانتا وزيرة وزير دولياسة ماير كمجالة أهلا ما سنتين وكما سنتين بواسدينا marka hadaan taa ka gudbo oo aan u gudbo inaan brief yar ka siiyo shaqada meesha ka socoto shaqada socoto waa phases badan tahay hadda waxa socda waa phase 1 phase koowaad ee xabsiga marka phase koowaad ee xabsiga wuxuu ka kooban yahay dhismaha aad u jeedaan oo galaashiin ah ee dhismaha weyn ee xabsiga ah dhismahaas yar ee meesha laga soo galay ah oo baabuurta lagu baarayo dadka lagu baarayo darbigan wareega ah aad arkaysaan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta galmudug wasiir dawlaha iyo dhammaan wafdiga la socda gudoomiyaha gobolka saraakiisha ciidamada amniga gudoomiyaha ku-xigeenka degmada dhammaan kambaniga runtii gacanta ku haya meeshan iyo injineerada iyo dhammaan bahda saxaafadda iyo shaqaalaha iyo ciidamada amniga dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsantihiin mudane wasiir sida halkan ka muuqata gaalkacyo baahi weyn bay u qabtay runtii xabsi caalami ah ilaahay baa noo suurtageliyay fayskii koowaad meel sidaan wada arkayna gabangabaahu marayaa alxamdulilaah waxaanan isleenahay gaalkacyo iyo dhammaan galmudug iyo gobolka mudugba dee wuxuu u yahay runtii xabsiyada ay ku xisaabtamayaan sidaa darteed waxaan isleenahay ballaarin aad iyo aad u weyn buu u baahan yahay marka runtii baahida taalla gobolka iyo caqabadaha ka dhacaya aan qiimeyn ku samayno waxaan isleenahay baahi aad iyo aad intaan ka weyn baa meesha taalla laakiin alxamdulilah fayskii koowaad waxaan kaga mahad celinaa runtii kambaniga gacanta ku hayey iyo injineeradii iyo dhammaan shaqaalaha qiimaha badan ee halkan dhismaha quruxda badan ka muujiyey ee maanta gabagabada maraya aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa mas-uuliyadda kambaniga si gaara ugu sii mahad celina runtii waxaa ka muuqata inuusan interest uusan ka fiirin laakiin uu fiiriyey waajibaadka dalka iyo dadka iyo waxa loo qabanay tayadooda markaan fiirino dhismaha meesha ka muuqda aad baan kaga mahad celinaynaa mudane wasiir mar kale iyo mar kale sida maantay wafdiga ballaaran ee qiimaha badan ee wasaaradda howlaha guud ka socda ee hogaaminaysay waan kaaga mahad celinaynaa booqashadii hore iyo kuwa maanta ah sida gaalkacyo ku arkaysay gaalkacyo waxaa ka socda horumarro kala duwan waxaana saldhig u ah galmudug uu hogaaminaya madaxweynaha galmudug axmed cabdikari qorqoor qorshaha labaadna runtii waa wasaaradda howlaha guud maanta dhismayaasha ama wadooyinka aragtay gacanta aan ku hayno mar kale waxaan ku leenahay mudane wasiir intaana shaqada idinku samaysay dhammaystirkeedana maantay insha allahu tacaala adiga iyo dhammaan wasaaradaha kale iyo madaxweynahan marti ugu nahay annagana inta aan meesha joogno isxilqaankaas baa heer gobol iyo heer degmaba runtii isku garab taaganahay wasiirka howlaha guud wasiir dawlaha iyo waftiga fata la socda maayarka degmada iyo ku-xigeenkiisa kambaniga hako mas-uuliyaddan loo idmaday saxaafadda ciidamada dhammaan waxaan ku salaamaya salaam calaykum waxmatullahi barakaatu intaa kadib war la sheegaa ma dhimana laakiin wasiirku indhihiisa ku arkaa wax walba ficilka aan muujinaynaa wax walba laga fahmi karaa mudane wasiir meeshan waa meeshii aad horena u taqaan u ogeydeen la socoteen waa xabsiga fisikoobaadna dhammaad buu ku dhow yahay saakana waxaan soo wada qabana shaqooyin badan oo wadooyin ka mid ah waxaan runtii oran karaa gaalkacyo maanta waxay ku tillaabsanaysaa horumar lixaad leh waayo horumarka waad soo aragtay gaalkacyo maantay waxay runtii maamulka galmudug ugu fadhidaa macno weyn waa magaalada koowaad ee laga hirgeliyo golo deegaan waa magaalada koowaad ee laga hirgeliyo canshuuraha wax walba gaalkacyo way bilowda sida aan u bilowna waxaan rajaynayaa inay dhammaad noogu noqoto dadka nagu daydo 6 bilood ka hor ayaan halkan nimid iyadoo bannaan oo halkan dhagax dhig ka sameynay maanta inaan nimaado xabsigii laga dhisay halkan oo gabagaba ah waxay milestone fiican u tahay in tallaabo fiican hore loo qaaday sida aad ka maqlayseen injineerka oo technicalka side engineerka halkan xukuma
warbixintiisa aad ku dhageysanayseen waa fayskii koowaad oo hadda maraya gabagaba maraya runtiina gaalkacyo horaa looga hadlay saakana munaasabad kalean uga hadalnay inay tahay meel aada muhiim u ah oo markii la yidhaahdo xasradaha soo noqnoqda ee ka dhaca baadiyaha iyo kuwa kale ay aada ugu badan yihiin maadaama ay dhowr xuduudood ay u dhowdahay ama dhowr meel oo la iska galgalo ay u dhowdahay waxaan rajaynaynaa maadaama hadda gobolkii amnigiisii soo hagaagayo in laga maarmi doono xabsiyo laakiin haddana mar kastaba waxaa muhiim ah in loo diyaar garoobo in dadka dambiilayaasha loo helo meel lagu xiro